waftigii murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ee maalmihii u dambeeyay ku sugnaa xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo ayaa xadhiga ka jaray xafiisyo cusub oo gaadhaya 15 laabood oo xisbiga wadani ku yeelan doono xaafadaha kala duwan ee magaalada Ceerigaabo. munaasabadii xadhig jaridda laamaha cusub ee xisbiga wadani ka furtay magaalada Ceerigaabo ayaa waxa ugu horeyn ba ka hadlay mas'uuliyiinta xafiisyadaasi. waxaanu nahay dad daacada, dad midaysan, dad himiladooda iyo wanaagooda iyo quruxdooda tiigsanaya, dad xusbiga u ah rigli. waxaanu ku soo dhaweynaa xafiiska dhalinyarada ee qaybta birdaha ku soo dhaw gudoomiye qaybtii dumarka waa soo martay, qaybtii waayeelka waa xafiiska loo halku nooga furan yahay, kii qaybtii dhalinyaradana waa kan waa kugu soo dhaweynaa gudoomiye. beeshu iskeed bay soo abaabushay 4 guri bay magaalada ka furtay, kii dumarka waa soo furtaan, kana waa kii dhalinyarada. waqtigoo cidhiidha darteed labada baan doonaa in xadhigana laga jaro, labada dambena insha Allah gudoomiyaha gobolka isaguna xadhiga ka jaro. 4 guri ayaa xisbiga aanu loogu shaqeynaya ilaa kambeynka. ilaa xilliga waxaan u taagnayn xisbiga garab istaagiisa baan u taagnayn. imkana waxaan diyaar u nahay sidii aan u soo dhaweyn lahayn. haddaanu nahay dhalinta laanta mustaqbal, haddaanu nahay maanta waxaan halka ku soo dhaweynaynaa musharaxa xisbiga wadani. waxaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani oo dhammaantoodba soo dhaweeyey furitaanka xafiisyadaasi. dadka aynu wada garanaynaa maanta waxaanu idiin keennay musharaxii madaxweynaha inuu idiin furo, guriga idiin furo. sidaa darteed cid kaloo idiintii ma jirto, waa inaad ku soo dhaweysaan. isaguna isna kelmadihiisu idin odhanayaa. ugu dambayntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo xadhiga ka jaray xarumahan cusub ee xisbiga wadani ka furtay magaalada Ceerigaabo. waxaanu idinka mahadnaqaynaa guud ahaan gobolka Sanaag iyo magaalada Ceerigaabo sidii quruxda badnayd ee noo soo dhaweysay. maanta Soomaaliland waxay isku raacsan tahay in isbeddel la sameeyo. isbeddelku wuxuu ku imanayaa marka aynu kaararka qaadanno ee codkana ku darro. marka fariintayadu waxa weeye idinku niminina inaan idinku guubaabino inaad qaadataan kaararka codbixinta. codkiina maanta wax beddeli kara oo madaxweyne beddeli kara, mid cusubna samayn kara, oo xildhibaan baarlamaan dooran kara, oo golo deegaan ku dooran kartaan. marka intaasoo fursad buu leeyahay kaarku. marka ayaynan iska dayicin. Yuusuf Cabdi Xasan, Telefishinka Caalamiga Universal, magaalada Ceerigaabo.